بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan bilaabaynaa qaybtii labaad ee ahayd proctor testing. waxaan ii sharxaynaa sida loo kala qaybiyo. waa kala qaybinta ama qaybinta waa qaybtii labaad ee proctor testing. waxaan hadda si baan u sharxaynaa waa kala qaybintii, waa abortion sample, si loo kala qaybinayay sambalkii aanu keenay ee hore nigu sharxay si aan soo qaaday. sambalka markaa kala qaybinayso yani shabag weeyaan, bahalkani dhankana uu furan yahay, dhankana uu furan yahay. hoosta waxaa saaran waa laba saxan oo laba qasacdood ama saxan, waa abortion sample. waa qaybna xagga ku shubantay fiiri, qaybna waxay ku shubantay dhanka kale. mid kamida waxaan ku celinaynaa kiishkii, midna waxaan ku celinaynaa bahalka akhtarkaan ku celinaynaa saxanka akhtarkee weyn, wiilka weyn baan ku shubaynaa. qaybna waxaan ku shubaynaa kiishkii baan ku celinaynaa. waan u baahan doonaa qaybtan kiishka aan ku shubayno hadhow toole tacwiid waxa la yidhaahda ayaa jira oon yani dhagaxa waaweyn bedelkeeda aanu kasoo saaran doono, ama halkaas ama inta qaybta ku hadha qaybta labaad la soco. markaas qaybtan hadda kalena fiir, waxaan ka akhtarkaan ku shubay si loo kala qaybiyo sambalka. halkaan ku shubay, haddana waan iska rabdhigi sidii oo kale shabagii waan saaray bahalkii. marka haddaad haysato weeyaan qalabkan oo kale si aad u kala qaybin lahayd, si aad ugu kala qaybin lahayd ku shubaynaa. haddana ilaa aan hello waxaan u baahannahay miisaankii miyadan 9 kiilo ayaan u baahannahay. 9 kiilo kimiyadan ayaan uga baahannahay sambalka dhan ee soo qaadnay oo metelaya ciidii dhaneed ee aanu lagu shaqaynayay. hadda mid kamid a hadda way dhowdahay taa mid kamid a hadda saxankan sifir baan ka dhignay. qayb kamid aan ku subaynaa waa miisaanka sambalka weeyaan. saxanku waa 0, miisaan buu saaran yahay. miisaanku weeyaan saxanku waxaa taabanaysa meesha 0 waa 0. saxanku wuxuu kuu sheegayaa bas sambalka saaran. kaan miisaaminay waxa weeyaan haddii wax yar ka dhinaado gacantaad ugu buuxinaysaa ama uu ku ziyaado noqdo waad ka yar naaqusaysaa, mushkilad ma leh. se loo kala qaybinay saxanku waa 0. waxaan u akhriyay bas miisaanku caynada saaran ama ciidda saaran saxanka ku dhex jirta bas, madibada weyn ku dhex jirta. hadda waa ka 9 kiilo way dhan tahay. marka hadda waxaan sameynaynaa waxaa jirta qaybta dariiqad kalaa jirta oo aanu u kala qaybin karan haddaanan haysan. masalan qalam kala qaybinayo bacbaan keensanaynaa, dhulka waa nigu sharxayaa bas. bacbaan keensanaynaa, bacdaas markaa waan ku dul shubaynaa ciidda dhan oo ku kala qaybinaynaa. 4 qaybood baan u qaybinaynaa. fiiri hadda waan si fiican baan isugu laaqaynaa, waan isku hagaajinaynaa, sii tiran dhagaxii weynaya ki yaraa waxsiis. waxaan kala jeexaynaa marka 2 qaybood baan kala jeexaynaa. labada qaybood haddana 2 kale aan si kala jeexaynaa. kala soco waanu kala qaybinaynaa. 2 ka kala dhignay, haddana labadii baan 2 ka sii kala dhignay. 4 qaybood baan kaga dhignay caynadii sambalkii. marka yiri marka labada iska soo horjeediba waa sambal. sawla soo xad labada iska soo horjeediba waa sambal. haddii aad miisaamaysan 2 iska soo horjeeda qaadaysaa, waad miisaamaysaa. haddii aad si kala qaybinaysana 2 iska soo horjeeda yaad qaadaysaa. hadda 2 iska soo horjeedaan qaadayna waxaan ku celinaynaa bacdi baan ku celinaynaa, waayo way badan tahay weli. haddaad rabto inaad miisaantana maxaad samayn? 2 iska soo horjeeda qaadi waad miisaami. intaad saxanka 0 ka dhigto yaad miisaami. haddii kalena sii weyn tahay caynadu ay weyn tahay, ciid bay sii badan tahay, 2 iska soo horjeedaad qaadi waxaad ku celin kiishkii. waxaa loo baahan yahay tan kiishka aad ku celinaysa ama waa ka hadma. haddii aad matalan u baahdo mar labaad ama caynada hore ay kaa xamaato, waxaad samaynaysaa ama ay kaa daadato, waxaad samaynaysaa inaad caynadii kugu jirto bacda kugu jirta dib ugu kala qaybisa. haddana waa ka hadda labadii soo hadhay baan isku laaqaynaa. weli way badan tahay. hadda waa dariiqada 20 haddaadan haysan qalabkaas. si fiican baan isugu dhex laaqaynaa. waan kala jeexaynaa haddana labaan u kala jeexay.
labaan u kala jeexi waad arkaysaa waasi gibtir markaad ishaad ku eegaysaa hadday meeshan dhagax yar tahay gacanta ku in yar yani waad hadday dhagax yar tahay xaggan gacanta ku kala qaybin waxaad eegaysaa yani wakaas haddana waan sii kala qaybinayna fiiri afar baan kasii kala dhigayna haddaa istiraahda laba iska soo horjeeda sagaalku waa ku filan yihiin waad qaadan laba iska soo horjeedo waad miisaami haddii aad tidhaahdo way weli way weyn tahay aynadan laba iska soo horjeedaad bacd ku shubi oo inta hadhay baa isku laaqay haddana waad sii kala qaybin marka waa ka hadda qaybtana muhiima qaybin labada qaybood weeyaan labada dariiqood loo qaybinaya hadda qaybtii aan miisaamanay waa 9 kiilo inoo noqotay waxaad adeegsanaysaa siifka la yidhaahdo 3/4 iyo number 4 ama 19 mm iyo 4.75 mm ka saxanka weyn ku dhex jiraayo waa 4 waa 9 waa 3.3/4 fiiri hadda waanu shaandhaynaynaa waxaanu ku shaandhaynaynaa 19 mm 19 mm yaanu ku shaandhaynaynaa waa millimeter yani 19 millimeter weeyaan waxaanu ku shaandhaynaynaa shabag waxa waa ka shaandhayn wixii isku dul taaga halkan imtixaanka yar baan ku shubaynaa wixii dhaafana sambalku ka mid yahay la socda si fiican u fiirsada halkaas labada shabag si loogu shaqaynayo wixii isku dul taaga waxaa la yidhi saxankan yar baa lagu shubayo dib baa loo miisaani waayo moldigaan hore usoo sharxay noqon maayo in dhagaxan waaweyn xataa lagu dhexlaaqo laakiin waxaan sameynaynaa bedelkiis yaanu intusi doonaa way soo socotaa waa 9 kiilo oo miisaamanay yaanu shaandhaynaynaa 3/4 wixii isku dul taaga wixii dhaafa sambalku ka mid yahay halka akhtarku ku dhacayaa laakiin wixii isku dul taaga ee dhaafi waaya waanu miisaamaynaa la soco waa muhiim weeyaan intani qaybtani waa aad buu muhiim tahay siifka number 19 mm wixii dhaafa waa sambalkii uu ka mid yahay oo weelka akhtarku ku jiraya wixii isku dul taagay waxaanu sameynaynaa inaanu dib u miisaano oon ogaano intuu yahay waxaan ogaanaynaa dhagaxa waaweyn ee isku taagay 3/4 waa imise miisaankiisu saxanku wuu noo miisaaman yahay dhagaxa muna siinayaa miisaankiisu waan qoraynaa waan qoraynaa dhagaxa waaweyn ee isku dul taagay siifkaas 3/4 waa imise miisaankiisu waan qoraynaa waan qoranay khalaas waan ogaanay intii over 4 ka sareysay iyo intii ka hooseysay halkaas ka jirta wixii dhaafayna hadda waxaan sameynaynaa la socda khalaas intii wixii dhaafay halka waa okay kan over 4 isku dutaageen miisaanay waanu daadinaynaa laakiin fiiri waanu daadinaynaa halkaas isku wada yani weelkan kale ku kala qaybinayna wixii ku hadhay baan haddana waxaanu marinaynaa way tacwiid baan ku sameynaynaa over 4 wixii dhaafaa يعني هو رسالنا سحن كان كدول شعرين و 3/4 ينكو شعرين ودي waxaan wadnaa 3/4 qaybtii hore no qaybtii labadii qaybood midii sagaalkan qaadanay ma ahayna tii kale ee hadhay yaanu shaandhaynayna waxaanu ku shaandhaynayna 3/4 ugu shaandhaynayna halkaasaan ku dusbayna waayo ma duuro wal miisaan noo miisaaman yahay laakiin tan kale wixii ku sii jiray iyada lafteeda yaan iska tuurayna qaybtan kale hadhay 3/4 wixii dhaafo weelka yar hoos ku jira wixii isku dul taagana saxan kale ku dusbayna waan daadinayna jawaan haysana waa tii hore weyn xisaabtu tan dambe ha ku darina waxaan raadinaynaa miisaankii hore la soco waa tacwiidkii hadda la raadinaya waxa la raadinayaa 3/4 wixii dhaafa ee isku dul taaga 4 ayuu noqonayaa tacwiidkii dhagaxa waaweyn miisaanay intuu noqday 3 kiilo 4 kiilo intuu noqday maxaanu ku cawdaynaa ugu bedelaynaa bedelkiisa ugu bedelaynaa dhagaxa dhaafa 3/4 dhaafa
isku dul taaga 4 na qaar baa dhaafaya hadda la socdo oo faayanka uu dhaafaya 4 waxaan ku caawidaynaa waan fahmay hadda waad fahantay si fiican uu tarkiis sameeya 3 kiilo miisaane ama 4 kiilo miisaane dhagax waaweyn ayaa waxaanu samaynay waan daadinaynaa hadda khalaas yaan bedelkeedii intii noo hadhay qaybta kale noo hadhay aan shaandhaynaynaa oo nagu bedelaynaa tacwiid u sameeynaa ama ugu bedelaynaa baasin 3/4 waan daadinaynaa hadda fiir waxaas waan daadinay qaybtan hadda noo hadhay waa maxay waxa weeyaan baasin 3/4 waxaan ku shaandhaynaynaa hadda number 4 fiir u fiirso 3/4 waa u dhamaatay haddii ay kafayn weydo iyaanu kiishii kala soo baxaynaa in kale oon ku shaandhaynaynaa mar labaad laakiin hadday kafayso kimiyaddii miisaankii aan miisaanay dhagaxii haddii ay kafayso waa sideedo waa caadi waa 0 baan ka dhigaynaa la socaa saxankana waa 0 ka dhigaynaa hadda waxaa weeyaan si fiican baad ula socotaan 3/4 buu dhaafay cayinadan hadda aan shaandhaynayna ku shaandhaynayna 4 baa la yidhahdaa kan ama 4.75 mm waa millimeter waxaan raadinaynaa hadda kimiyaddii u horreysay miisaanay ee waaweynka dhagax waaweyn ahayd waa imis bedelkeedii baan tacwiid ku samaynaynaa passing 3/4 returning 4 isku dul taagta passingka 4ka lama rabo la soco passing 4 lama rabo waa returning 4 waxay isku dul taagaya weeyaan hadda waxaan shaandhaynayna ee soo dhaafay 3/4 ama 19 mm miisaankaan eegaynaa haddii ay kafaysay oo intii aan miisaane ay noqotayna wabilaahi tawfiiq way fiicanta okay waan ku daraynaa caynadii asliga ahayd hadday noqon weydo kiishkii baanu kala soo baxaynaa oo waxaan ku shaandhaynaynaa 3/4 baan ku shaandhaynaynaa waxaan haddana ku shaandhaynaynaa 4 mar laba si aan u helo kimiyaddii aan horeen miisaane intay tahay ee dhagax ahayd waa ka hadda la socdo خلاص تنو مبهنين وباسم فوركي مبهنين واحد waxaan la soo baxaynaa way kafeen weeyday kimiyadii kiishkan kala soo baxaynaa yar waxaan ku shaandhaynaynaa 3/4 kiishkan kala soo baxnay way kafeen weeyday kimiyadii waxay noqon weyday intii loogu talagalay ama 9 ama 3 kiilo 4 kiilo miisaanay iyo noqon weyday waa dhagax waxay ku suudu taaga 3/4 kuma daadinayna waa kala ku dhaw baalkaas ku dhaxtu waan daadinayna isaga oo 4 kuma bahnin warid passing for 3/4 returning 4 waxaan u baahnaa sidii hore weeyaan laakiin tan waxa weeyaan way kafeen weeyday kiiski waan kala soo baxnay dib baan u shaandhaynaynaa waxaan shaandhaynaynaa 3/4 haddana waxaan ku shaandhaynaynaa 4 ka waxaan u baahanahay passing 3/4 returning 4 okay hadda waxaan ku shaandhaynaynaa waa maxay waa number 4 se u kafayso kimiyaddu waa hadda 4 kan ku shaandhaynaa la soo okay hata 4 kan ku shaandhaynaa way kafeen weyday tii hore kiishkan kala soo baxnay dib baan u shaandhaynay 3/4 haddana waan ku shaandhaynaa 4 waan ku daraynaa marka waxay bay u baahnayd marka wax badan u baahnayn تركيز halkaas sameeyo si fiican uu yani dhammaan waxaan iga codsanayaa laakiin wixii faham weydaan ama tashjiic ama aad leedihiin waan eegana warqadii dib u eegana la socod
كير بدتي يهر ما كان عقصنا فيري انتي عن قرة الرئيسي اي كير بدتي ما كير نعقصنا واكا انتي بان هلا وأقول عيني زي أصلي أنا كنت بشتغل فيه خلاص هديت انت وأول ما تحكي كلام انت مهم كوينتاس هذا ودي بقوم ميزان يا لسؤال سقالك كيلو مدني هم سما مايا اوكي marka wixii dhaliila ama aad aragtaan aad fahmi weydaan ii soo qoro waxay tahay aniga tasjiic bay tahay markaad ii soo qoraysaan wartaasaan fahmi weynay waxaasan garan weynay ii soo qoro waxaas wareysano marka hadda waa miisaamay wadan tahay وكاين سمبل كلية مركز سبسكرايب لها وشير لها سووا قارو دمان دنيرة دو قارو أنا قلنا وتشجيع نوغسي نقضه مركز عند السلامة يا دمانتين لكن وكا شير سي لها وسبسكرايب لها كندا سووا قارو فايدة ونوغ دو قارو دمان والسلامة يا السلام عليكم.